cidda hawsha ku habbooneed way samaysatay waxa weeyaan Soomaalida oo hogaaminaysa madaxdooda halkan waxaan soo istaagnay aniga oo masalada IGAD saaxiibkay European Union European Union Somalia waxa weeyaan deputy special representative of the Secretary General UN in African Union mudana Prime Minister waxaan ku soo kacnay oo gurba ku nahay inaan ku soo biirna hawsha wanaagsan oo adiga hogaaminayso adigoo ah Prime Ministerka Soomaaliya la kaashanaysa madaxda Soomaaliyeed annagu oo wixii aad iyo aad u xumaa oo ka dhacay magaalada Galkacyo annaga beesha caalamka iyo guud ahaan Soomaaliya meesha jirto aniga uma arki maanta inay tahay maalin farxad ah waa maalin murugo badan waa maalin loo baahnayn inay dhacdo 20 sano kadib markuu shacabkan islaayay dowladda federaal uu helay nidaam dowladeed oo beesha caalamka ay aqoonsan tahay uu helay in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaha la heshiiyo يعني أنت صرت فرحات مرض لكن وحنا فرحات لك ونسود ويننا هرنا إنا ننتي congratulations أنا ملاحظ الصوماليات وهلقا المان توسي نتايا Prime Minister كوغامنايا President عبد الولي President عبد الكريم أحمد شريف all of them يعني احنا كسينا الساعة باش عالم كرئيو كنت لجبت في أموريسا هذه ديان الصوماليا بس نقول الصوماليا كمية وانت وانت كدعة هنا تسوي قربان كرتان وسكون اللي كرتان وشيء كجاري كرتان أي تلمام السواري دوبه حمغيننا عروض المامي كان عروض الجير كالقفة صوماليا والجير وحاول شخصي ما كيف سنة حتى يتبتك حرامتا وحتى ما عندنا تشتغل فوات إذن كان مركب أسوء برمضي أننا عوشان هول بيش عالم كي هدامني معها وإن تعملها وهول هدامني دولة فدرالك وأنا قلت لهم لأن أنا بشينا براي ولا استركاء دولة فدرالك يقودها ونحن دولة فدرالك وأسوء برمضي ورد تجرات كل ربعنا دستور كان سراي كسر بحي وغريمان waxaan ku rabnaa inaan hoosta ka xariiqdo hal shay halkan dagaalkii ka dhacay marta wuxuu soo dhicin walaalayaal naftooday lama soo celin kara si walba wax u seexdaan intiina madaxda ee annaga waxaa idin faraynaa haddii maanta aad saxdeen wixii aad saxdeen inaad ka dagaysaan inay suurta gasho macna ma keenayso ilaahina wuu kula xisaabtamay haddii inta wax la seexaa marka adigoo arkaya hortaada shacabka isku laayaan waa filimana maatay waxaan rabnaa annaga beesha caalamka arrintan in gooniya inaan xunta ku fiirino aniga muddada hadda la baraxayo beesha caalamkana u sheega Soomaaliya haddiisan la helin Prime Minister cid shacabka inta hasuuqda haddana nala xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya hasuuqa saar ma soconaa ولازم بس عارف ان الصوماليا قدرك السبب باجرا هيك طب عندنا المحكمة هيك افريقيا جنودي ما له ربنا بدنا بس هو محكمة ما يكون عند الصوماليا الى هاد مالك هم من حطوا حصوبة هذا شعب فتح سعرها شيء عالية دولتنا فدرال كان عرفت سوقامي سعي حصت ونسوى هاي we can allow impunity to continue Mr. Prime Minister this is impunity then they are ما تودع كايو بلوة تسمايا مالك الوطردون فالشعب ما يقافل والله لا يعني مسيرة قبك القارن دورة إلى قبك الإقاوة بس حبك أردت سواء كون هذا أنا نرد هذا مرضونات إذا أنا وحنا أنا إنجا إلى رد أردت كنت يجري معي مالك فصل معي محكمة عالم الكيرة حسوق أبو جوسر أنا لكن مالك عالم
years. Haddii leaders iyo noqon karin shacabka loo baleeyo dad madaxda hogaamin kara ilaahay ha u sahlo. Haddii kale leaders noqota shacabka isku dirina janna lagu bedelay wallaahi billahi tallahi naar baa isku gudanaysa. annaga intaas ay tahay dadka prime minister ugu dambaysa oo lidaa shit baa ciidan qaran in la helo Soomaaliya. ma dhici karta inay states dhismaan stateska dhismaayana state walba uu ciidan u yeesho wadama Soomaaliya so hal wadan oo maaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranta inuu yeesho keli la rabo. siday ku dhici kartaa inay wixii aan ku aragnay videoska noo soo duway arrinta ka dhacda gaalkacyo waxaa doona inay Syria ka dhacaysa. tanks iyo anti-aircraft missiles saas xabka lagu beeganaya. waajibaadka dowladda qaran maa taas waajibaadkii dowladda qaran aawas ciidan Soomaaliya hadda waxaad ka hadlaysaa 2016 waxaad ku galaysaa 2016 shacab ma haysid shacab hubeel ma haytaan baa 2016 ku galaysaa. waxay ila tahay inaad fikradaas bedelo walaalihii dowlad goboleedka igaadi beesha caalam dhigooda ku kubay Soomaaliya. They are dying in this country. hal maalin cid isweydisa male dadka ajnabiga oo dhigooda ku kubay Soomaaliya why haddii aan haysan hubka aan haysan ciidanka aan haysan waxa ummaddan usoo gurmata ma idinka samaysaan maxaad ugu baahan shisheeye idinku imaan maxaa ugu baatay shisheeye inuu kalimaado haddiiba ciidankaa la heli kara prime minister. why do you require foreign forces if you have sufficient forces in the country? why you keep why maskaxda ma shaqaynayso waxaad ku maqatiin kulli waad dhuusan tihiin ilaahay ka cabsada wadankii ummaddiin u naxariiso. taasaa aniga la yidhi far midda ugu dambaysa waxaan rabnaa wada hadalka socda hadda Soomaaliya guud ahaan 2016 arrinta ka dhacda gaalkacyo idinkaa moodin inay gaalkacyo tiri maanta Soomaaliya il buuxeedu ka yeer meel walba oo Soomaaliya beesha caalamkana waxay noqotay arrin laga yaabo oo intijoogkan dambe shaqadarasha community idinka waxaad moodaysin dad dagaalka gaalkacyo kulli isku daysanay tahay. dhibaato weynaad u keentay shacabkiina waxaa muuqata dhibaato weyn inaad Soomaalidu keenaysaan waxaa muuqata dhibaato weyn inaad beesha caalamku keenaysaan. hama malaynina inay tahay wax deegaanka jira ku xir Soomaaliya deegaanka hama malaynina wax gaalkacyo keli inay tahay. walaalayaal reer gaalkacyo dadka ku nool gaalkacyo magaalada gaalkacyo ha isku abtirineen walaalayaal maxay yeeshaan walaaltinimada ka shaqeeya aanan isku tindirin labada nin walba gaalkacyo ku nool ayay eedan u tahay marka laga soo gudbo guud ahaan qaranka. haddayna dan kuu tahay amaad ka shaqaysan waxaa dan ku ah ma inay laba la u baahan tahay ma inaad soo gurmana u baahan tahay. jaraalka militariga waa ka Soomaaliya weyn ciidanka kulli prime minister haddii lahaa aniga hanu wareejiyo gediba si ugu dayin ay Soomaaliya shaqada weyn haddaana mas-uuliyiintii waxaa qaata inay tahay ciidan qaran inay noqdaan. haddii saa iyada yeelin cabdikariinna ma aha Suwaalina ma aha hadda prime minister ma aha hadda kii ka dambeeya iyaga imaanashana ilaa wuxuu ku yimaado uu lugta la gelaya haddii wax laga bedelay ani waxaan u baahay waxaan ayaa Soomaalida halkan iskugu imaatay midnimadiina ayaa muhiim ah. arrinta ka dhacda gaalkacyo waa